السلام عليكم أخيارتا كحران جانلكا كيفن جريس كسو دوادا موقال عصب وان كفلانقين دونو عيارتي اما دقالكي يو اف سي دا ترسيقادو اها لو بقول كونتاني افر او اي خبيب يو جاستين كو دقالامين استاقا اماراتكا خاصة ابو دابي دقالكان او دعاي تاريخ دو مركي احايد لواتاني افرتي بيشي توبناد مالين سبتي saacadu tahay 9 fiidnimo 2020 ugu horeyn dagaalkan waxaa si aan caadi ahayn u guuleystay dagaalyahanka Khabib kaasoo la soo baxay awoodo hor leh oo laga filayn dagaalka uu soo bandhigay Khabib aad ayuu uga bedelnaa dagaaladii uu horay u soo galay sababtoo ah dagaalkani Khabib Nurmagomedov wuxuu soo bandhigay pressure ama cadaadis zaid ah iyo naxariis tiro badan oo uu u naxariistay dhigiisa Justin Gaethje laakiin maxaa cadeynaya naxariistaas haddaan dib u milicsano maalmihii ay ciyaartan fooda soo saarneyd iyo wareysyadii uu bixiyay Justin Gaethje Justin waxa uu sheegay lacalla haddii uu Khabib darooyinkiisa culculus sida triangle-ka ama darada qofka labada lug qorta looga qabanayo iyo amba oo ah darada gacan jabiska inuusan isdiibi doonin ama uu taabgareyn doonin sida awgeed wareegii koowaadba Justin waxa lagu helay darada gacan jabiska taasoo markuu isdiibi la yahay oo Khabib u dareemay naxariis oo jabin dhigiisa asagoo ka bixiyay darada si kastaba wareegii labaad dagaalka aad ayuu u kululaaday oo Khabib pressure-ka wuu si laba jibaaray Justin haraantiyo aad u culculus ayuu ku karbaashay Khabib ugu dambeyn Khabib ayaa bedelay taktiigiisii hore ee darada gacan jabiska oo wuxuu ku bedelay taktiiga triangle-ka markii ciyaartii wareegii labaad la gaaray asagoo sidaa u sameeyay in uusan waxyeelo aad u buurnayn u geysan dhigiisa maadaama ay ciyaartu daawanayaan waalidiintiisa sidoo kale Khabib waxa uu haystay fursad aad u fara badan oo ku garaafeen karo wajiga Justin Gaethje laakiin wuxuu doortay inuu garaafeyn Justin Gaethje oo uu nooga badiyo darada runta haddii laga hadlo go'aan noocan ah yaa qaadan karo adigoo waliba ku jira dagaalka ku dhex jira waliba cadaadisyo fara badan ay ku saaran yihiin dagaalkan uu yahay kiisii ugu dambeeyay aabihiis uu garabkiisa ka maqan yahay balanta uu hooyadiis ka soo qaaday inay tahay midkii ugu dambeeyay dhigiisa oo ah nin aad u adag recordka aan weligiis laga badinin inuu ilaalsanayo asxaabtiisii oo dhan oo kala maqan dhanka kale coachka Khabib asaasaha AKA ama American Kickboxing Academy akademiyada ciyaaraha kickboxingka ee Mareykanka Javier Mendez ayaa sheegay inuu Khabib Nurmagomedov 3 isbuuc ka hor uu suulka ka jabay kuna dhacay cudurka qamuqashiirka wuxuuna u soo jeediyay Khabib inay kansalaan dagaalka laakiin Khabib wuxuu dhahay hadduu suulka iga jaban yahay maskaxdayda way fududdahay dhabti Khabib Nurmagomedov heerka khibradda dagaalka iyo naxariista uu muujiyay ma ahan mid erayo lagu koobi karo wax laga qaban karo Khabib tani Khabib waxay siinaysaa dhibco ka dheeri ah dhibcaha guusha ciyaarta UFC 254 ee Justin Gaethje iyo Khabib Nurmagomedov waxayna si xoojisay in Khabib booska John Jones ee pound for pound-ka uu la wareego waa maxay pound for pound waa darajo ama jago shakhsi ahaan loo xulayo qofka ugu sareeya ciyaaraha UFC-da ama feerta taasoo lagu xulanayo sharuudo dagaalyahanada la isku barbar dhigayo ayadoo lagu dabaqayo xirfadaha dagaalyahanka iyo guulaha uu gaaray balse labada dagaalyahan kuma loolamayaan octagon-ka ee waa tartan xulasho dagaalyahanka u qalma pound for pound-ka waxaa dhici karta labada dagaalyahan inaynan isku miisaan ku jirin midna miisaanka culus uu ku jiro midna miisaanka fudud uu ku jiro ugu dambeyn maxay ka dhahayn dagaalyahanada UFC-da ugu caansan dagaalkan UFC-da 254 tirsigiisa ahaa ee Khabib iyo Justin
waxaan ka bilaabnaa McGregor ama Conor McGregor wuxuu soo qoray bandhig wanaagsan Tim Khabib aniga waan sii wadanayaa xishmad iyo tacsiba waxaan u dirayaa aabaha mar labaad adiga iyo familkaagaba salaan kalilaaba okay waxaa ku xiga Eddie Alvarez waa cajiib ama sheeko cajiib ah iyo shaqo ama hiwaayad cajiib ah Tim Khabib waxaa tahay qof khaas ah ama saaxiib khaas ah ayaa tahay Joe Rogan asan muxuu soo qoray Khabib Nurmagomedov is the GOAT uu soo qoray GOAT marka waxaa laga soo gaabiyey greatest of all time waa qofka ugu khatarsan ama ugu fiican UFC-da ama MMA-da ugu dambeynna Khamzat Chimaev wuxuu soo qoray alxamdulillah adiga dagaalkan sidee buu kula ahaa dagaalka iska caadi ayuu ahaa dagaalka ugu khatarta badan Khabib ayuu ahaa ama dagaal aan la iloobi karin ayuu ahaa doorashadaada iyo jawaabtaada noogu reeb qaybta hoose ee commentiga mahadsanid fadlan haddaad ku cusub tahay channelkan Kiyabi Ingiriis muuqaalka like saar badalka guduudan ama casaanka ah taabo gujine gambaleelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga ee aan soo gelin doono mustaqbalka dhow iyo midka fog mahadsanidin